وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. wasiirka diinta iyo waqaafta Somaliland badi culimada waaweyn ee reer Somaliland iyo culimo kala duwan oo iskaga timid daafaha caalamka ayaa ka qayb galay munaasabad aroos oo maanta lagu qabtay hotel Damal ee magaalada Hargeysa. waxaana munaasabadan arooska loo sameeyay wiilka u dhalay qaariga weyn ee Sheekh Xasan Macalin Al-Waajidi Xamse Xasan Macalin. waxaana halkaas hadallo kala duwan ka jeediyay culimada iyo xubnihii kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadani in nagu sharfaan noo imaadaan arooskan oo insha Allah taala barakaysan. ilaahay subhanahu wa taala waxaan ka rajaynaynaa in aroos barakaysan ka dhigo. wiilkayga Xamza ayaa horta arooskiisa waaye. nikaaxu wuxuu ka dhacay Muqdisho. cirsigana waxaan u kasnay insha Allah taala inuu ka dhaco Hargeysa لأسباب ما. السبب الأول هرجيسة أبال بين غلادها ويلك هذا قراءات العشرة تفتن كوجلي إنما أيو كبل أبي قراءاتك معهد الفردوس ونكبل أبي هدنا في نفس الوقت. محمد وندقنا مدة تقريبا 3 سنوات. مركز قراءاتك متون تأني حفظيان ماشي كفى إذا يستن وحكبرتين ماشي أنا أهيت ما دام مركز ترتن كي قرآن كي iyo xafladii isku soo aaday waxa marka hadafka labaad u tamanina in culimada qurra العالم ay wada joogan ala raasihim shaykhana wa habibana Sheikh Abdul Rashid Sheikh Al Sufi in barakada min bab al-fa'l yani in barakada iyo khayrka in la qayb qaataan insha Allah taala. malayna ruqoygu mala hadalka ma dhargay la hadaliye ilaahay wiilkiga gabadha isu barakeeyo waalidkoodna ha u barakeeyo dadkana ha wada naxariisto innagana akhriya duba ilaahay inoo naxariisto sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasallam. waxaan ducaynayaa oon anigoo laysoo karaameeyey oo aanan u qalmin inaan halkan ku horeeyo oo rag badan oo qiimo leh oo culimo ah oo xambaarsan kitaabkii ilaahay ay halkan fadhiyaan. waxaan leeyahay inanka iyo inanta waxaan ugu ducaynayaa ducadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما بالخير واختقوا. marka koowaad waxa aan runtii hambaliyo iyo duco tii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo inagu barbaariyay ee uu noo jideeyay aan u diraya ardaygeena iyo ardayadeena ahlu quraanka ah maantana aynu ka soo qayb galay xafladoodii arooska. waxaan leeyahay barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khayr. أهل الحديث كباسم أهل الحديث إن نكون برينا إن شاء الله تعالى مرلبات نسومالي لان عاصمة دي لبات كل بورة من وجهه تابع في ليها إلى أن يذكر سودوينا إن شاء الله تعالى oo aanu hambaliyayno arooska aanu hambaliyayno oo aanu bogaadino ayaan insha Allah taala iyadana ku ducaynaya. Sheekh Xasan waxaan kaga baxaya kulli meeliba meeshay bari ka xigtay koonfur way ka guur badan tahay galbeed hadii la aadana guurku waa yaraada. Sheekh Xasan quraanka kaliya ha ka baranine laba shay oo kale ka barta waajib markaan ku noqdo Sheekh Xasan dadka culimada way war ka warhaayaan dad badan baa ani aabihiis waajid yahay laga yaabay inuu haystaan. waa degmadii uu ku dhashay Sheekh Xasan Waajidi waa degmadii uu ku dhashay gobolka Boqol degmo ka tirsan aan ku dhalanay oo waajid leeyahay ayaa maartay laqabkiis loogu daray ma sha Allah. Sheekh Xasan Abu Xamse oo khayrkeena la soo doontay meerkiina ka dhacay xamar jacayluna jecel yahay khayrkan reer Hargeysana ka qadine Somaliland la doono. sheekh waxaan ku leeyahay jazakallahu khayr ilaahay xasraadka miisaanka ku saaro khayr baad la soo doonatay. labada lamaanaha iskuulsadee marka hore waxaan ugu ducaynaynaa ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku duceeyey بارك الله لك وبارك عليك وجمع
وجمعكما في الخير. لدن علماء سوتي ميدا أهل القرآن كأ إن لجوا سؤاديو مناسبات دي قراءات كترتقى أنو قبنا إني أي صواب تهذا هيد علماء ما دام ودنا كيجوجان إن لوجا فايدستو إن حفلة دي أراس كنا لجوا سؤاديو مناسبات الله وحويان مركز كي كتخرجين قراءات كي كبرتين ومركز الفردوس مركودي هورنا مركز الفردوس هرجيسة يكون باللاوين قراءاتك مركز دمر وحيكون ضميين مركز الفردوس أو مقدشو مركا وأرضي ذني إلى كعروسك إمات هاي بتشوفنه مهركي سلاح حمر كدعي حفلة دي شغلتنا هرجيسة كدعي وارين هذه هذا عجائبة نصيب ويا شيء إنه لهاي كده قرر هيك لقول نصطه إيه لقول نجادو ويل يعانى قبر يعانى وذكرنا نبض الله كيله. طلب الشيخ حسن حفظه الله تعالى أن نرحب بالضيوف عامة وبالوفود الذين قدموا إلى مسابقة القراءات ضيوفا على مؤسسة المصباح وضيوفا أخص في هذا المقام على هذا الزواج الميمون فنرحب بهم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الضيافة. loogu talagalay inaynu arooska iyo aroosada ugu ducayno iyaga ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo reerkii lagu nasto ee af iyo adin iyo uur iyo indho iyo arrin bay isla garta in ilaahay ka yeelo helana durriya saalaha insha Allah bidnaahi alkariim. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. madashan isugu kan keenay inaynu isugu nimaadno arooskan oo sida xamse uu sheegay ka gadisan kuwii Hargeysa lagu qaban jiray runtii waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa dhammaantiin sida qiimaha leh ee sharafta leh ee casuumadii la idin fidiyay Sheekh Xasan Alwaajidi uu idin fidiyay oo soo ajiibteen mahadnaqaasun baa aniga la igu yeeray. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani ee dhowrsooni doonaya ayaa nabiga noo sheegay inuu yahay guurku sabab lirrisq asbaabti rizqa mid kamid ah rizq horna qofku inuu helayo sida ilaahay baa deeyay yakunu fuqara يغنيهم الله من فضله كهدي دادا وحبا هيسيهين إلهي باقاني كدقي دونه سبحانه وتعالى صباردو نوابة ترادا رسي قادي ودا طابين هذا قفك الدمري وارونا دمركة كلقة هايدنا إلهي هذا الرزق قصين هذا قف لبعض كان ترى لبدنا وجود أرزاق رزق لوقف يوح كبض البعض هليس إلهي بان الرزاق سبحانه وتعالى markaanu waxaan ku darsanayaa kaliya ku gubaabinaya dhalinyarada iyo cidda doonaysa inay guurka ee ay hirgeliso waa inaynu guurka fududaynaa oo culayska ka daynaa. الزواج لا يحتاج إلى بيوت واسعة ولا أثاثا فاخرة guryo waasaca uma baahna guur qalab badan iyo agab badan iyo wiciyad badan iyo uma baahna wuxuu u baahan yahay nufuus tayiba dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo isku jamacsada wanaaggaas. Ismaan Axmed Ismaan Sabti Hargeysa.